مسيح الدجال سبحتانكيس waxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto qiyaam saacadka waana imtixaan uu Allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay inuu ku tijaabiyo adoomadiisa مسيح الدجال wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala u siiyay awood iyo mucjisaad taa oo ka dhigi doonto inay dadka ku fidnoowaan waxaana ka mid ah mucjisooyinkaas inuu roobka keeni karo inuu dadka inta soo noolaysiin karo waxaana ku fidnoowi doono dad badan nabiga sallallahu alayhi wasallam asigoo tilmaamaya muuqaalka مسيح الدجال waxa uu yiri waa nin dhalinyaro ah oo cas tima adag leh waxa uu bidaarku leeyahay qaybta hore ee madaxa qaybta dambe waxa uu ku leeyahay tima adag sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamay in qoortiisu ay dheer tahay yahayna qof xoogaa cayilan ishiisa midig ay tahay mid masaxan mid bidixna ay tahay mid qalalan oo biyaha ay ka tageen labada indhood dhexdooda waxa uu qoran kafara oo macnaheedu u tahay waa gaaloobay tawo maxay ay tahay sababta uu Allah subhanahu wa ta'ala ugu fududeeyay awoodahaas مسيح الدجال sababta ayaa ah inuu Allah subhanahu wa ta'ala uu doonayo inuu tijaabiyo iimaanka adoomadiisa hadda waa kuma مسيح الدجال goorma ayuu soo bixi doonaa halkee ayuuna ka soo bixi doonaa مسيح الدجال waa qof soo bixi doona aakhir zamaanka waxa uu ka soo bixi doonaa tuul lagu magacaabo asbahan waxa tuuladaas ka soo raaci doono 70,000 oo yahuud ah waxa uu sheegay doonaa inuu yahay qof wadaad ah kadibna waxa uu sheegay doonaa boqortinimo ilaa ugu dambaan uu sheegay doono ilaahnimo waa meesha uu fidnada ku bilaabi doono waxa uu ku wareegayaa dhammaan caalamka isaga oo doonayo inuu dadka fidneeyo marka laga reebo magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina waxa uu la hadlayaa dhulkaasi uu soo saaro hanti iyo dahab wixii ku jiro gudihiisa